kani waa muuqaalkii ugu horeeyay oo ka imanaya deegaanka Jabad Godane ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo saaka uu ka bilowday dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kooxaha Al-Shabaab oo maalmihii u dambeeyay fadhiisimo halkaas ka samaystay sidaan ku helay ila xogaal ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo saaka hiirtii hore dagaalkani qaaday ayaa la sheegay in ay inta badan gacanta ku dhigeen fadhiisimihii iyo goobihii kooxdu ay ku sugnaayeen dhinaca kalena jab xooggan ay gaarsiiyeen kooxdii shabaab ee deegaankaasi isku aruursanaysay maalmihii u dambeeyay inkastoo ay yar tahay isgaarsiinta dhinaca kalena ay adag tahay in la helo xaqiiqada halkaasi ka jirta haddana waxaa la isku raacsan yahay in halkaasi uu ka socdo dagaal xooggan oo aan waxba la isu reebanin dhinacyaduna ay doonayaan in midba midka kale uu ka adkaado balse ciidanka xoogga dalka ayaa si hordhac u sheegtay guusha dagaalka ka socda Jabad Godane sidoo kale waxa ay sheegeen in ay ka hortageen soona afjareen qorshihii kooxdu ay ku doonaysay in ay kula wareegto deegaan xebeedka degmada Warshiq dagaalkan ma aha markii ugu horeysay ee uu ka dhacay deegaanka Jabad Godane balse 5 maalmood ka hor kooxda shabaab ayaa soo weerartay deegaankaasi iyadoo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sheegeen in la jabiyay kooxdii halkaas soo weerartay laga qabsaday goobo ay ku sugnaayeen meel ay biyo ku shubanayeen sidoo kale ay gacanta kaga dhigeen hub iyo daawooyin aad u badan oo kooxdu ay lahayd dagaalkan iyo wixii ka soo kordhana warbixinadeena dambe ayaad ku maqli doontaan